maanta oo Jimcaha waxaan noo farxada anigoo ku hadlaya afka golaha deegaanka inaanu halkan ka ambabixino ka sabootino dhalinyaro shana oo safar baaskiilada socdaal baaskiilada ay ku marayaan Hargeysa ka bilaabaya ku gaaraya ilaa iyo magaalada Berbera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you're all doing well. Today is the big day and we're on our way down to the Dr. Kawain, or the main hospital in Hargeysa. We're basically going to be meeting up with a couple of the people who signed up to the cycling event, inshallah, including a good friend of mine, Dr. Weheliye, and someone who I recently just met, mashallah, who said he also wants to complete the journey with me from Hargeysa to Berbera, inshallah. So it's going to be quite an interesting day, and I hope you guys enjoy this journey, because I certainly will. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Weheliye. What the flip? I said Weheliye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dr. Weheliye and I live in Hargeysa. I've been here for 10 years. So today I'm going with Ridwan and seeing how far he can take this journey. And from Hargeysa to Berbera, that is 160 kilometers of biking, and it's not easy. To be honest, not easy. So if he does accomplish, don't worry, I'm gonna bring him back safe and sound. That's my only objective. If I fail, don't worry, I might run away. Definitely run away. Definitely. If I find out that he died on me, khalas, I run away. So right now it's 8:45. We're right now at Halea, and we're gonna keep going until we reach Berbera. Right now we're waiting for the mayor, and I hope he gets here soon because it's gonna get hot. And once it gets hot, that's it. It's gonna be tough on the cycles. It will be tough for everyone. It will be tough on the guys, me. Even though I'm not gonna be with them, I'll be in the car riding peacefully, but still it's gonna be tough. Anyone who is willing to take part of this community or to take part of this fundraiser, be sure to do it as soon as possible. It will help many people. It will definitely help many people. It will definitely make some people's life much better. So I hope you try to do something that might help a fellow brother or a fellow sister. And here comes the legend, Ridwan, aka Sheikhuna Al-Aziz. Wait. Yeah, that was a bit awkward. Well, as you can see, the guy here who started this thing, what did he say? Somaliland Mental Health Organization. Yeah. mas-uuliyiinta Somaliland Mental Health Support oo ah urur si mutadawacnimo uga shaqeeya sidii loo daryeeli lahaa dawana ay u heli lahaayeen dadkeena ay siibaan xanuunada maskaxda ee dhimirka ka xanuunsanaya isla markaana ku dayacan degmooyinka iyo magaalooyinka dalka ayaa maanta xubno kamid u dirmay xarunta magaalada Berbera. Kooxdan safar dhulka ku marayay baaskiilada tuulooyinka iyo degmooyinka u dhaxeeya Hargeysa iyo Berbera ayaa maanta ka ambabaxay magaalada iyadoo ay kala shaqeyn doonaan sidii dadkeena dhibaataysan ee xanuunada dinarku asiibeen ay u heli lahaayeen dawooyin iyo xanaano. socodkaas oo nahay socod tamashliin ee ah
socod ujeedadiisu ay durugsan tahay oo ah in dadka maskaxda ka xanuunsanaya ama dhimarka wax ka qaba in qaadhaan iyo lacag loogu ururiyo Hargeysa wayna ognahay maanta waxaa jooga dad fara badan oo waalan oo ilkooduna aanay waxba u qaban karin waxba tari karahayn dadkuna waa dadaalayaan meelo badan baa jira oo dadkaas xanuunsanaya dhimarka wax ka qaba lagu hayo waxaa jira qaar kale oo ku xidhan oo xaafado ku xaraysan dadkaas in wax la taro wax la qabto ay u baahan yihiin marka waxaan rajaynayaa in socodkan ama socdaalkan rudwaan uga yimi ilaa iyo cariga Ingiriiska magaalada Bristol si uu markaa safarkan dheer baaskiilada ugu maro isagoo ujeedada qudhaatu leeyahay ay tahay in dadkooda waalwaalan ee Soomaaliland in qaadhaan loogu ururiyo oo kilibka markaa socdaalkiisaasi uu soo jiito dad fara badan iyo in ay mataqaanaa soo caawiyaan dadkeena xanuunsanaya haye iminka maxay ahayd safarkii waa noo bilaabmay saaka waa jimcahayd waxaan dhaafnay Haleeya waxaanan iyaru sii jirnaa maxay ahayd burcadii waxaan noo qorshaysan halka koowaad waxaan istaagaynaa maxay ahayd oo barqadle markaasaan markaa daroobka waa halka koowaad ay ku nasanayaan mar labaadka waxay ku nasanayaan Tacarbaro oo iyadana space weyn leh halkaasna markay ku nastaan rubca ku nastaan way ka dhaqaaqayaan saddexaadka waxay ku nasanayaan Xamaasna markay ku nastaan iyagana waa markaas waxa weeyaan nashad waa markay saddexaad ku nasteen barta u dambaysa ku nasanayaan waxay noqonayaan controlka Berbera insha Allah ayaa noo qorshaysan markaas afarta meelood ayaa maxay ahayd checkpoint u ah taasoo aragtaan inay way socdaan afar safar ku galay nabad soo ka noqdeen markaa saas markaa burcadii baan ku doonay Stop. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is the first checkpoint. Kiko Sama. Kiko, the first checkpoint Angarona, and basically they're doing 35 kilometers per hour. This is fine. This is fair enough. This is very good, and inshallah we'll be reaching Berbera. If this is how it's supposed to be, if this is how they're gonna pace, we're gonna reach Berbera in time before even 1 or 2, inshallah. So enjoy the ride. inshallah tuulada isku xigta tan tuulada tan ku xigta tayra ka dambaysan taa muqasamaadka kale ayaa fadhiisana sii daaya taasan ay ku nasan soco waa dhawe
anything. It was like normal. So far, this is good. So far we're in. We've made it to Abdal, and I don't know how far we are from Berbera right now. Right now it's like probably an hour. Yeah. So it will probably take us an hour to reach Berbera. We're having this stop. It's almost 1 o'clock. It's actually 1:30. They're gonna eat. They're gonna rest. And after that we're gonna continue again. And waxaan doonay horta halkan inaan uga mahad celiyo horta Mukhtaar maxamed cali oo aad iyo aad noo soo dhaweeyay maanta waxa weeyaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin. meeshu waa hotel dhalaaliye, waa Abdaal, waana hotel dhalaaliye goobo fara badan ku yaala adeer. waa lambarka wuxuu ku yaala Hargeysa, Berbera, Abdaal, Wajaale. intaas oo goobood buu ka shaqeeyaa. waxaanu caan ku yahay caanaha iyo subaga. after 8 hours. Yeah, this is the beach. You see? We did it, we make it, and I'm proud of them. MashaAllah, 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 MashaAllah. MashaAllah, 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 MashaAllah. Hi. After 8 hours of cycling, non-stop cycling, need I say more? بصي ده كان